markaan ugu tegay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali kheyr aan kamid ahaa si gaar ah ula kulmay wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka codsada waxaa kamid ahayd maanta halkan aad joogtaan inaan ka heno 2,000 oo ciidan special Muqdisho ah ballanqaadkiisana waa maantan ugu horeysa halkan ugu jeedaan. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'na teşekkür etmek istiyorum. Diğer ülkelerin kartaa in wax la ballan qaado la wax la arko sida uu ballan qaaday ku dhacday marka hore ballanqaadku wuxuu ahaa inuu soo diri doono tababaro saraakiil qaas ah tababarayaashu soo diray waan aragnaa maanta dadku way tababareen waxaan rajeynayaa 2,000 dhiman inaan sii wadi doono Abdullaahi Raad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tababarayaasha nooga soo baxay reerahooda iyo familkooda halkan u yimaadeen inay tababaraan dhalinyaro Soomaaliyeed eedna aad ugu mahadcelinaa sidoo kale tababaraha meeshan aan joogno asagana aad ugu mahadcelinaa waanu ku mahadsantihiin. Uzaklardan gelip ciidankan gaarka ah ee la yiraahdo Haram Cad tababar waxaad qaadateen sida halkan lagu sheegay sida hubka ama loo xafido ama loo isticmaalo sidoo kale anshaxa aad qaadateen human rights ka qaadateen waxaad barateen waxaa la rabaa inaad ugu shaqeysaan dadkiina iyo dalkiina. Ve Haram Cad adı verilen bu ve eğitimlerini tamamlayan bu ekibe diyorum ki bu aldığınız waxaan rajeynayaa tababarkaad qaadateen oo ahay muddo 5 bil ku dhawaad waad dareensan tihiin in la gelshay waqti tababaro kale ka yimaadeen wadan kale shisheeye ah waxay halka u yimaadeen inaad dalkiina iyo dadkiina daafacdaan marka waxaan rajeynayaa waxaad barateen inaad bari doontiin laba isugu subhanahu wa ta'ala inaad si fiican u shaqeysaan waxaad barateen aan dadkiina iyo dadka kale aan tababarkan fursad u helin inaad u faa'iideysaan waxa ugu muhiimsan waa akhlaaqda waxaan rajeynayaa akhlaaq fiican heshaan waxaan rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed way daalan yihiin dadka ay sugayaan waa idinka ay qaarka kala tababarada ku jiro waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka gedisnaan doontaan ciidamada kale oo joogo magaalada Muqdisho iyo wadanka oo dhan sababtoo waxaad dareensan tihiin in dad badan ay ku soo qaadan jireen wadanka gudihiisa iyo dibadiisa marka idinka maadaama tababar ku qaadateen wadanka gudihiisa fursad u hesheen haddana ciidamo shisheeye inay yimaadaan ciidamada walaalanahay Turkiga ay yimaadaan wadankooda ay ka soo tagay familkooda marka waxaan rajeynayaa haddii Allah uu diiraahdo inaad wax badan ka bedeshaan amniga magaalada iyo dalka oo dhan sidoo kale waxaan rajeynayaa akhlaaq wanaag iyo shacabka marka la dhaqmayo in si fiican lala dhaqmo cadawga Soomaaliyeed al-shabaab nimankan gacan bir ah ku qabatiin fadhi wadanka Turkiga maadaama uu cusub waxaan dhihi lahay ku soo dhawaaw wadanka Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne Muqdisho'ya hoş geldiniz istiyorum. Ugu dambeyn waxaan rabaa haddii Allah uu diiraahdo sida hore u sheegay inaad cadow gacan bir ku qabataan shacabka Soomaaliyeed oo dhugnaataan akhlaaq iyo waqti badan aad gelisaan amniga wadanka oo dhan gaar ahaan waxa hoosta ka xariiqay magaalada Muqdisho ogaada waxaad hordhac u tihiin 2,000 ciidan gaar loo tababar hordhac u tihiin waxaan rajeynayaa in akhlaaqdii halkan ku barteen aad sii wadaan haddaad idinka kala tafaaruqdaan 2,000 laga niyadjaba ogaada 2,000 waxa alla ka sugo gacanta ku hayo waa idinka hormud ah marka waxaad leeyahay hambalyo tababarkiina waa idin xiran yahay waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.